maxay tahay sababta uu dhigaha u qabsado marka uu gool dhaliyo Bruno Fernandes? Isaga ayaa ka jawaabaya. balse inta aan u gudagelin warbixinta waxaan idinka codsanayaa inaad like saartaan muuqaalka si saaxiibo kale u gaaro sheedhay aragtidaadana ka dhiibo mahadsanid. Marka laga hadlayo dabaaldega, xillig walbaba waxa uu wataa astaan u gaar ah isagoo gool markii uu dhaliyana soo bandhigo. Bruno Fernandes ayaa soo qabtay labadiisa dhigood sidii uu wax dhageysanayo oo kale, waxaanu dabaaldegiisani ahaa mid aanu marna ka baaqsanin intii uu joogay Manchester United ee uu goolasho u dhalinayay tan iyo dhammaadkii January. Xiddiga reer Portugal oo wax laga weydiiyay ayaa sheegay in dabaaldegan gaarka ah ay inantiisu u iqtiraacday ayna tahay wax arrin ay xataa xaaskiisu samayso marka ay gurigooda joogaan oo ay inantooda yar ciyaarsiinayaan. Tani waa sheeko dheer ayuu yiri Bruno Fernandes oo la hadlay website-ka Manchester United, wuxuuna intaasi raaciyay markaan Portugal ka ciyaaray gaar ahaan bilowga xilciyaareedkii labaad ee Sporting, inantayda ayaa soo koraysay waanaad ogtahay. mararka qaarkood aniga iyo xaaskeyga ayaa la hadalna, waxayna bilowday inay samayso sidaan, inay dhigaha soo qabsato sidaas oo kale. Kadib markii ay bilowdo sidaan, waxaan aniguna ka dhigtay dabaaldegayga. Bruno Fernandes waxa uu ka cawday telefishinada oo uu u sheegay in mararka qaarkood aan soo bandhigin oo aan TV-ga ka soo muuqan isagoo dhigihiisa heesta. Waxaana uu yiri waxaan u baahanahay inaan la hadlo Sky sababtoo ah markasta oo aan sidaan sameeyo kama soo baxayo shaashadaha. Marka aan inantayda telefoon ka waco ciyaarta kadib, waxay ii sheegtaa maadan sameyn dabaaldegi. mararka qaarkood waxaan u baahnaa inaan sawiro u diro si ay u aragto inaan sameeyay. hadda way ogtahay markasta inaan iyada darteed u sameeyo. bilowgii may garaneyn, laakiin hadda way garanaysaa markastana iyada daraadeed ayaan u sameeyaa dabaaldega, ayuu yiri xiddiga kooxda Manchester United ee qaranka Portugal Bruno Fernandes. haddii aad ka heshay warbixinta, fadlan like, share, comment intaba u saar.